waxaa inaga xasuusina channelkan inaad subscribe dhahdaan like iyo share si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. diyaaradaha ka baxay Soomaaliya ayaa imika waxay ku hakanayaan garoonka Wajeer kadib go'aan ka soo baxay dawladda Kenya. 2 sano ka hor ayay markii dawladdii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayay iyo dawladda Kenya ay ku heshiiyeen in diyaaradaha ka baxa Soomaaliya ka baxa garoonka diyaaradaha Cad ee Muqdisho ay si toos u tagaan Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. asaate go'aankan ayaa maalmo ka hor soo baxay waxaana diyaaradaha hadda la sheegayaa inay ku hakan doonaan garoonka Wajeer si loo baaro. arrintaasi ayaa hadalhayn kala duwan ka soo baxday dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in Kenya ay siyaasadeynayso arrimaha la xiriira duulimaadka. shacabka Muqdisho ayaa waxay ka hadleen sida u arkaan arrintan soo cusboonaatay ee la xiriirta dhinaca duulimaadka u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. waxna qaarkood bay qabaan in dawladda Soomaaliya ka dhigayso go'aankan imika ay qaadanayso dawladda Kenya. kullay arrintan hadda diyaaradaha la leeyahay Wajeer baa lagu hakinaya Soomaaliya markay ka baxaan waa arrin aad iyo aad u nasiib darraa. Kenya talaabo noocaas kama aan filaynin. waa dal aan darisnahay waa dal ay Soomaaliya isku dhow yihiin. Kenya horay waxaan aad iyo aad uga xumayn xadgudubka ku soo xadgudubtay Soomaaliya maxaan ku yiraahdaa ahaa badda Soomaaliya ay sida sharci darrada ugu soo xadgudubtay. hadarna hadday tiri diyaaradii Soomaaliya ka imaan Wajeer lagu hakinaya waxaan aragnaa arrin soo xushmad darra oo Soomaaliya aan xushmaynaynin ayaan u arkaa. hadda waxa soo kordhiyo oo hadana in loo diiday ay keentay waa la ciflimo lagu arkay dawladdeena. marka dawladda Soomaaliya waxa laga filan karaa mar haddii Kenya go'aankaas ay qaadato. dawladda Soomaaliya sida looga bartay oo aamusnaantaas iyo shacab inuu ka amaano dawlad annaga oo hadda loo kacayso maanta oo wax ka qaban karto awood leh oo ma aragna annaga in shacabka intuu kaco oo qeelasho oo hadal ma ahan awood kale ee dawladda aan leedahay midna lama bar haddii balcad wax ka qaban karin oo afgo wax ka qaban karin dawladda Kenya wax ka qaban kartaa. dawladdu marka wax way dalkeeda mas'uulka ah. Kenya Maxamed Siyaad Barre waagii Itoobiya la weeraray markii la yiri kani galbay ku kala mooyay kani galbay ya Kenya waxay tiri ka kale la sheegay wayna Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri Allah naxariistee Kenya anagu ciidan buu dirmayna rag buu dirmayna dumarkan u dirnaa dumarkan rabnaa buu yiri intaanu hubayno inay Nairobi ka casheeyaan oo shaqo ku qarsadaan barnaamij madaxdeedii marka maanta Kenya inay saayeen horta waa naga aragtay kow laakiin waxa weeye go'aanka waxa ka mas'uul ah dawladda ma fahant Kenya qasaaro waxaan kuma qabno waxaan qasaare iyo lugoyn aan ugu haysto waxaan anigu codsan lahaa oo aan dawladda ka codsanaya inay Kenya xaq qaaskeedana joojiso duulimaad waxa la wixii duulimaad uga baxayaan Soomaaliya ay joojiso